بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينك وحجينك حبناها قولها وزيرها قدوبية كحجينك لبعض حسبك مسؤولين تا أقوياها كوايل كي خيارتك لا فردها لما أنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. munaasabaddan maanta aan halkan isugu nimi oo munaasabad weyn oo aad iyo aad u ballaadhana taariikhi ah sharaf leh qiimo iyo qaayo weyn u leh xisbiga kulmiye iyo guud ahaan qaranka. waxaa halkan maanta la isugu yimi sida ka warqabtaan waxaa soo dhow oo hadda maalin iyo laba ka hadhsan tahay shirweynihii afraad ee xisbiga kulmiye shirweynihii lixaad ee xisbiga kulmiye waxaa weeye xisbiga maanta dalka ugu da'weyn. xisbigaas waa xisbi weyn oo ballaadhan. mar kastoo xisbi siyaasi ah howlihiisa iyo shirweynihiisa uu yimaado waxaa yimaada olole damac iyo howlo axsaabta siyaasigii ay leeyihiin oo kulmiyeba uu ka mid yahay. hase ahaatee xisbiga kulmiye waa xisbi weyn oo aad u ballaadhan. waxaa mar walba xisbiga kulmiye howlihiisa lagu maamulaa tala wadaag, waxaa lagu maamulaa maxaanku idhaahdayey isqancin. sidaa la ajligeed muddadan dambe madaxweyne ku-xigeenka waxaa isaguna yidhi waan tartamayaa oo guddoomiye ku-xigeenka afraad yidhi waan u tartamayaa wasiirka ganacsiga maxamuud sacad saajin. arrintaasi hawsheedii xisbigu muddadaaba wuu ku jiray, degaankiisu wuu ku jiray, taageerayaashiisu way ku jireen, xisbiga madaxweynuhu wuu ku jiray, hoggaanka xisbiga wuu ku jiray. hawshaasi si fiican baa loo soo ambaqaaday, si fiican baa loo soo daadihiyey. golaha wasiirada xubno ka midaba iyaguna aad iyo aad uga shaqeeyey iyo guud ahaan golahuba. arrinkaasi wuxuu ku soo ururay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan isla mara ahaantaana ka mida xubnaha hoggaanka xisbiga oo guddoomiye ku-xigeenka afraad ah oo ninkii layidhi waan kula tartamayaa ah. go-aan buu qaatay, xisbigiisana wuu ka aqbalay, raggiisana wuu ka tala qaatay. madaxweyne ku-xigeenku wuxuu go'aan qaatay inuu isagu tartankaa ka tanaasulo. waa go'aan dadnimo leh, xisbinimo leh, geesinimo leh, shaqsinimo leh, muujinaya haladeegiisa iyo go'aankiisa iyo tudhaalihiisa xisbiga iyo kiisa qaranka intaba. madaxweyne ku-xigeenku xisbigan golihii degankii ugu horreeyey ee laga doortay buu ka mid ahaa. hoggaankii xisbiga ee muddada dheer ee dhowr iyo 10 sannadood soo hoggaaminayeyna ka mid buu ahaa. wuxuu maanta dhaqaalaysanayaa waa gurigiisii iyo xisbigiisii iyo qarankiisii uu saddexda xilli doorasho uu ka soo noqday madaxweyne ku-xigeenka. aad iyo aad ayaa xisbigu uu ugu boogaadinaya anigoo ku hadlaya magaca ku-xisbiga. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa, waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa, waxaan aad iyo aad sharafteeda u huwinaynaa inuu kaalintaas mudnaanteeda iyo sharafteeda uu qaatay madaxweyne ku-xigeenku. sida la ajligeed baan shirkan jaraa'id maanta u qaybinaynaa. isagaa shirkan jaraa'id markaa maanta ahmiyaddiisa iyo mudnaantiisa leh. madaxweyne ku-xigeen waanu kuugu mahadnaqaynaa. madaxdii xisbiga iyo madaxdii qaranka labadaba waad ahayd nin maalintaa madaxtinimadiisana garanaya, qarankiisa iyo xisbigiisana badbaadinaya unbaa go'aan qaata. hadda waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi sayle.